waxaan rabnaa dadaalkaasi aad bixinaysaan in qof iyo laba qofood ka tirsan ciidamada aysan ku dheelinaan rabnaa garsoorku wuxuu u diyaarsan yahay oo ujeedkiisu yahay ay muhiimadiisu tahay shaqadiisu tahay in uu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidanka inuu ilaaliyo waa annaga waxaan rabnaa waxa way deegaanadeeni iyo dhulkeeni inuu nabad noqdaa oo asan qof lagu dhibaatoonin waa waxaan rabnaa waxa waaye in dadka shacabka ah markay ciidanka arkaan ay aaminaan shaqada aad ku haysaan shaqada aad ku jirtaan inay tahay shaqo sax ah inay shaqada aad ku jirtaan ay tahay ayaga u haysaan oo markii dhibaato dhacdo loo soo ordo inuu askariga qofkaas noqdo isaasan rabnaa inaan aamin ujeedka u dagaalamaysan waa inuu dalkaani nabad noqdaa ujeedka u dagaalamaysan waa inay hooyada gurigeeda joogta nabad uga soo baxdaa suuqa ku tagtaa wadaadka gurigiisa joogan oo masaajidkiisa nabad u galaa uga soo baxaa waay ganacsadaha gobolka jooga inuu gobol kasta wax uga imaan karaan waxna u geysan karaa waay qofkii ciidamada kamid ah oo qabtaa qof hubeysnayn ama markaasi tabar aan wax ku sameeyo oo salahayn oo qabtaa oo dilaa mas'uuliyadda ka dhalata inuu asaga qaadayo sababtoo ah ujeedka iyagu ma ahayn in qofka la dilaa ma ahayn ujeedku waxay ahayd qofka hadii la qaban karo in la qabtaa oo la geeyo cadaaladda la geeyo qofki shabaab ka tirsan oo la soo qabtaa oo gacanta ku soo dhigtaan waxaad helaysaan meel aad ku xirtaan waxaan diyaarinay dadkii ka shaqeey lahay meeshaasi oo maxkamadda qaadi lahayd oo cadaaladda marsi lahayd aan diyaarinay waxaan idin ballan qaadaynaa qof aad soo qabateen oo dembi ku cad yahay in uusan magaaladii dib ugu laaban idin ballan qaadaynaa oo cadaaladda la geeyaa tilaabna laga qaadaa intuu sharci ku muto uu maraa oo dhankaas aan ballan qaadaynaa maxkamad ahaan iyo garsoor ahaan waxay tala meel martaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la helo garsoor maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way maadiyeen